بسم الله الرحمن الرحيم هذا سيديد يا لباتنك بيشا جون سنتك لبكن لباتن يلح أو كوباغن صدح يا طبانك بيشا محرم سنتك كن أفر بقول أفرتن يا سيديد تاريخ ذي هجريد كسو دوادا مركله إيا برامجكي حولشدا وراركا قضبدا برامج كان آن دين كوغوهين وحا كامدا ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran weerar culus oo loo adeegsaday sawaariikh iyo diyaarado daroon ah ku qaaday 8 saldhigyo ciidan oo Mareykanku uu ku leeyahay wadamada Khaliijka. Weeraradan ayaa looga jawaabayay duqeymo Mareykanku uu ku ekeeyay goobo ku yaal gudaha Iran. Madaxweyne Trump oo Iran digniin ku siiyay in jiritaankeeda la weyn doono haddii ay sii wado waxa ugu yaray faralka nacasinimada ah. Trump oo lagu eedeeyay inuu jabiyay qaraarkii dhawaan u asixiyay Koongareeska ee xadidayay awoodaha dagaalka. Israa'iil oo weerar kala duwan oo dhimasho dhaawac sababay ku qaaday Syria, Lebanon iyo Gaza. Erdogan oo ka digay in Sahyuuniyadu ay bartilmaameedsanayso Turkiga isagoo sidoo kale difaacay xirashada xijaabka ama gambada gabdhaha muslimiintu ay madaxa ku asturtaan ama tinta. Xildhibaano ka tirsan Koongareeska Mareykanka oo si adag uga hor yimid qorshe maamulka Trump oo kaga iibinaya Turkiga matoorada diyaaradaha dagaalka. Haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir oo aad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. dalka Turkiga muddooyinkii la soo dhaafay waxa xiisad culus oo dhanka diblomaasiyadda ay ka dhex aloosanayd Turkiga iyo Israa'iil. Xiisaddu waxay sii xoogaysatay markii uu qarxay dagaalka Gaza oo Israa'iil ay ku ekeysay dhulalka Falastiiniyiinta weeraro iyo duqeymo ay ku geeriyoodeen kuna dhaawacmeen dad ka badan 200,000 oo qof. Erdogan ayaa si joogta ah wuxuu u eedeynayay Israa'iil. Dhinaca kale Netanyahu iyo xubnaha kale ee xukuumadda Israa'iil ayaa iyaguna waxa ay si adag u cambaareeyaan una weeraraan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Heer waxay gaartay labada dhinac. Erdogan lagu eedeeyay inuu yahay wasaadalka loo yiri dictator ama kaligi taliye. Erdogan dhankiisa isna sida uu yiri Netanyahu wuxuu yiri waa naazigii Jarmalka oo kale. Xaaladdu cirka ayay maraysaa haatan dhanka diblomaasiyadda. Macahdida arrimaha amniga iyo khibrada labada dhinac iyo waliba xitaa saxafiyiinta ayaa waxay qorayaan faafinayaan hadalla xanaf leh. Suurtagalna waxa ah bal leeyahay labada dhinac inay mar uun isfarasaaraan. dhawaan Israa'iil waxay ku tilmaamtay Turkiga inuu uga halis badan yahay Iran. haddaba madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shalay galikii dambe wuxuu jeediyay hadal aad u adag oo Israa'iil si ba'an ugu weerarayo. aynu eegno wararkii amurtan laga diyaariyay. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa uga digay shacabka Turkiga sida uu yiri fikirka Sahyuuniyadda kaas oo bartilmaameedsanaya guud ahaan dawladda Turkiga isagoo sidoo kale difaacay xirashada xijaabka ama gambada gabdhaha muslimiintu ay madaxa ku asturtaan ama tinta. Erdogan ayaa sheegay in fikirka Sahyuuniyadda ee ku dhisan sida uu yiri xasuuq guumaysi iyo faditaan uusan bartilmaameedsan isaga shakhsi ahaan oo kaliya xisbiga uu hogaamiyo ee AKP ama isbahaysiga shacabka balse uu beegsanayo dhammaan shacabka Turkiga. sidaas darteed marka aan la dagaalamayno Sahyuuniyadda oo ma dagaalamayno nafteeda ama dana gaar ah balse waxaan u dagaalamaynaa badbaadada dalkeena iyo shacabka oo dhan ayuu yiri madaxweynaha Turkiga intii uu ka hadlayay munaasabad uu qabtay xisbigiisa cadaaladda iyo horumarka ee magaciisa loo soo gaabiyo AKP. madaxweyne Erdogan ayaa si adag u difaacay xijaabka iyo xorriyadda lagu xirto isagoo sheegaya in xisbigiisa uu halgamay xaqiijinta xuquuqda gabdhaha
iyo haweenka oo sanado badan laga mamnuucay inay timahooda asturtaan. qof walba waa inuu ogaadaa in xijaabka uusan ahayn wax aan caadi ahayn oo bulshada ka baxsan ama xag jirnimo ah, sidoo kalena uu astaan u ahayn fikir ama mabda' gaar ah. xijaabka nooc kasta uu yahay wuxuu matalayaa xaaladii caadiga ahayd ee dalkan ka jirtay 1000 sano, wuuna si ahaan doonaa sidaasi ayuu yiri madaxweyne Erdogan. waxaa kaloo uu sheegay in tan iyo markii la aasaasay xisbiga AKP uu garab istaagay isdhexgalka bulshada, isu soo dhawaanshaha iyo dib u heshiisiinta halkii uu ka abuuri lahaa kala qaybsanaan, takoor, ka saarid ama faquuqid. Erdogan ayaa sidoo kale wuxuu aad u weeraray xisbiga mucaaradka ee CHP, isagoo sheegay in uu tartanka siyaasadda u bedelay colaad, kala duwanaanshaha siyaasadeedna uu bedelay kala qaybsanaan, khilaafkii fikradana uu bedelay iska horimaad, isla markaasna mar walba uu ka faa'iidaystay xiisadaha iyo kala qaybsanaanta. waa hagaag, ma jiro ilaa iyo hadda wax jawaab ah oo dhanka Israa'iil ka soo yeertay oo la xiriira hadalladan adag ee ka soo yeeray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. waa hagaag, intayna ka bixin wararka la xiriira Turkiga, dhawaan waxaan idin soo gudbinay warbixin la xiriirta in maamulka madaxweyne Donald Trump uu go'aansaday in Turkiga laga iibiyo matoorada diyaaradaha dagaalka. laakiin arrintaasi waxaa la soo warinayaa inay ka hor yimaadeen xubno ka mid aqalka Koongareeska ee dalka Mareykanka. warbixin arrimahan la xiriirta waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Yaxye Ciise. 4 xubnood oo ka tirsan Koongareeska Mareykanka asal ahaan ka soo jeeda Greega kana tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa si cad uga soo horjeestay qorshe maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo in Turkiga looga iibiyo matoorada diyaaradaha dagaalka ee F-110 ee Mareykanku uu soo saaro. xildhibaanada kale ah Gas Bilirakis, Nicolo Malitekos, Mikhail Haridobopoulos iyo Jimmy Patrionis ayaa sheegay in Turkigu aanu weli buuxin shuruudaha sharciga ah ee Mareykanka, isla markaana aan loo ogolaan karin in uu dib ugu biiro barnaamijka diyaaradaha casriga ah ee F-35. bayaan ay si wada jir ah u soo saareen ayay ku sheegeen in Ankara ay weli tahay waa sida ay hadalka u dhigeen il xasilooni darro ka abuureysa bariga badda Mediterranean-ka, iyagoo ku eedeeyay muranka badda, joogitaanka ciidanka Turkiga ee waqooyiga Qobrus iyo hadallada adag ee ka dhanka ah Israa'iil. khilaafka u dhaxeeya Washington iyo Ankara ayaa soo bilowday sanadkii 2019 markii Turkigu uu iibsaday nidaamka difaaca gantaalada ee Ruushka uu farsameeyo ee S-400, kaas oo sababay in laga saaro barnaamijka F-35 isla markaana lagu soo rogo cunaqabateyn. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in maamulka Trump uu si rasmi ah ugu wargeliyay Koongareeska qorshe ku kacaya in ka badan $700 milyan oo lagu iibinayo matoorada diyaaradaha F-110 kuwaas oo loo adeegsan doono diyaaradaha dagaalka kan ee Turkiga uu soo saaro. si kastaba ha ahaatee, xubnaha Koongareeska Mareykanka ayaa haysta 15 maalmood oo ay ku hor istaagaan heshiiska, inkastoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu awood u leeyahay in uu diido is hor istaag kasta. oo warbixintaasi ina la socodsiinayay. haatan waxaynu u gudbaynaa warar la xiriira weeraro Israa'iil ay ka geysatay Syria, Lebanon iyo Gaza. xagga Syria aynu ku hormarnay waxaa soo baxaya warar laga helayo dhanka militariga Israa'iil oo ay ku sheegayaan inay dileen dhowr qof oo hubaysnaa, kuwaasi oo lagu dilay gudaha waddanka Syria. waxaa lagu tilmaamay sida dalka loo dhigay argagixiso dadka la dilay. militariga Israa'iil wuxuu sheegay inuu sii wadi doono hawlgallada ka socda deegaanada uu qabsaday si uga hortago khatar kasta oo ka dhana shacabka iyo ciidanka Israa'iil, inkastoo goobaha hawlgalkan uu ka dhacay dadkan lagu dilay ay ku yaalaan gudaha waddanka Suuriya. bishii December 2024 ciidamada Israa'iil waxay galeen waxa lagu tilmaamay aagga kala xadaynta ee qaramada midoobay ay ka samaysay koonfurta Syria, taas oo lagu tilmaamay jebinta heshiiskii xabad joojinta ee dhacay 1973. qaramada midoobay waxay sheegtay in Israa'iil ay hadda haysato dhul dheeraad ah oo ka tirsan dalka Suuriya. dhanka Lebanon, militariga Israa'iil ayaa sheegay inuu fuliyay weerar ka dhacay magaalada Nabatiyah ee koonfurta Lebanon, isagoo ku andacooday inuu beegsaday dagaalamayaal ka tirsan Xisbullah. bayaan ka soo baxay ciidanka Israa'iil ayaan lagu shaacin
tirada dagaalamayaasha la dilay waxaana la sheegay weerarkan sidoo kale in lagu burburiyey waxa lagu tilmaamay goob laga rido gantaalada oo ku taal isla deegaankaasi weerarkan ayaa dhacay maalin oo kadib markii Israa'iil iyo Lubnaan ay kala saxiixdeen heshiis horodhac ah oo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro colaadda u dhaxaysa labada dhinac inkastoo rabshaduhu weli ay sii socdaan xagga Gaza waxaa lagu soo waramayaa in saacadihii la soo dhaafay Israa'iil ay kordhisay weerarada iyo duqeymaha ay ka geysanayso jidda Gaza Falastiiniin kala duwan oo isugu jira haween caruur iyo dad waayeel ah iyo rag ayaa lagu soo waramayaa in dhimasho dhaawac loogu geystay weeraradaasi inkastoo lagu jiro waxa loogu yeeray heshiiska xabad joojinta oo la gaaray bishii Oktoobar ee sanadkii aynu ka soo gudubnay hagaag waxaan u gudbeynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Mareykanka iyo Iiraan oo weerar culus ku qaaday saldhigga Mareykanku uu ku leeyahay wadamada Khaliijka iyo wararkii ugu dambeeyay gaar ahaan Trump oo hanjabaad culus u jeedinaya Iiraan xaaladda bariga dhexe saaka waa bariga dhexe 24 saac ee la soo dhaafay weerar iyo weerar celis ayay iswadaarsadeen Mareykanka iyo Iiraan madaxweyne Trump digniin culus ayaa ka soo yeertay oo uu leeyahay waliba Iiraan jiritaankeeda ayaa la weyn doonaa intaan u gudbin warkiisa waxaynu ku hormaraynaa war ka soo baxay dhanka Mareykanka xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa mar kale gaartay heer aad u sahreeya kadib markii ciidamada Mareykanku ay duqeymo xooggan ka fuliyeen bartilmaameedyo kala duwan oo ku yaala gudaha Iiraan iyagoo ku andacoonaya in tilaabadaasi jawaab ay u ahayd weerar Iiraan ay ku qaaday markab ganacsi oo shidaal sidii oo lagu magacaabo Kiko kaas oo ku gooshayay calanka Panama waxaana uu marayay marayka Hormuz markabkan ayaa siday in ka badan 2 milyan oo fuusto oo shidaalka ceeriin ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska dhexe ciidanka Mareykanka ee CENTCOM duqeymuhu waxay beegsadeen xarumaha lagu kaydiyo gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn xarumaha difaaca cirka nidaamyada isgaarsiinta kaabayaasha kormeerka militariga iyo goobaha lagu diyaariyo miinooyinka badda goobaha ay beegsadeen ciidamada Mareykanka ayaa ah bartilmaameedyo ku yaala gobolka Mareykanka Hormuz taliska CENTCOM ayaa xaqiijiyay in dhaqdhaqaaqa maraakiibta ganacsiga maraysa Mareykanka Hormuz imika si caadi ah ay u socdaan halka ciidamada Mareykanku ay ku jiraan heegan iyo diyaar garow dagaal oo aad u sareeya warbaahinta Iiraan ayaa sheegtay in qaraxyo dhowr ah laga maqlay gobolada koonfureed ee dalka sida Sirik iyo Qisham telefishinka Iiraan ayaa saacada ka hor waxa uu sheegay in dhowr qarax laga maqlay magaalo xeebeedka Sirik ee gobolka Hormuzgan ee xuduudda la leh Mareykanka Hormuz telefishinku waxa sidoo kale uu sheegay in dhawaaqa qaraxyo ay ka dhaceen goobo ku yaala tuulada Taharafi ee deegaanka Sarik waxaana la sheegay in la beegsaday munaarad isgaarsiinta loo isticmaalo warbaahintu sidoo kale waxay sheegtay in jasiiradda Qisham dhowr qarax laga maqlay geesta kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa digniin waxa uu saacada ka hor u jeediyay Iiraan waa si hadalka u dhigay wuxuu yiri waxa la weyn doonaa jiritaankeeda haddii Mareykanku uu isku arka buu yiri ku qasban yahay inuu dib u bilaabo dagaalka isagoo Iiraan ku eedeeyay inay jabisay heshiiska rasaas joojinta diyaaradaha Mareykanka ayaa hadda duqeeyay goobo lagu kaydiyo gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan iyo sidoo kale xarumaha raadaarka ee xeebta sababtuna waxay tahay mar kale inay jabisay Iiraan heshiiskii xabad joojinta ayuu ku qoray bartiisa bulshada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariintiisa waxa kale uu yiri waxaan gaari karnaa heer aynan mar dambe awoodin inaan si macquul ah u dhaqanno markaasna waa inaan dhamaystirnaa hawlgalka oo aynu ku bilownay guul weyn oo dhanka militariga ah haddii taasi ay dhacdo jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan jiritaankeedu waa soo afjarmi doonaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay Iiraan inay qaaday weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday oo lagu beegsaday markab xamuul ah isagoo ku tilmaamay waa si hadalka u dhigay arrintaasi xadgudub nacasinimo ah oo ka dhana heshiiska xabad joojinta
tani waxay timid maalin uun kadib markii lagu dhawaaqay duqeymo xagga cirka oo lagu beegsaday fariisimo Iiraan ku yaal iyadoo jawaab looga dhigayo weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu beegsaday markab xamuul ah oo marayay marinka Hormuz. taa beddelkeedii Iiraan waxay qaaday weerar ka dhan ah saldhigyada Maraykanka ee wadamada Khaliijka. isla wararka Maraykanka, xildhibaan Ro Khanna oo ka tirsan xubnaha aqalka Koongareeska ee xisbiga dimuqraadiga ayaa ku nuuxnuuxsaday in duqeymaha militariga Maraykanku ay ka geysteen Iiraan ay tahay jibin cad oo ku wajahan qaraarka awoodaha dagaalka ee Koongareesku toddobaadkan uu ansixiyey. Trump waa inuu hadda joojiyaa dagaalkan, haddii kale waxaan u gudbin doonaa maxkamad si loogu qasbo inuu sidaasi sameeya, ayuu yidhi Ro. qaraarka awoodaha dagaalka ayaa talaadadii waxaa ansixiyey aqalka Senatka, kaas oo ku ansixiyey coddan konton waxaana ka hor yimid 48 kadib markii qaraar la mid ah golaha wakiilada ama Koongareesku ay ansixiyeen 3 bishii Juun. qaraarka wuxuu farayaa madaxweynaha inuu ka saaro ciidamada qalabka sida ee Maraykanka colaadaha ka dhanka ah Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, wuxuuna dhigayaa in Trump uu adeegsan karo awood militari oo dheeraad ah oo ka dhan ah Iiraan keliya haddii si cad loogu ogolaado ku dhawaaqis dagaal ama ogolaansho gaar ah oo Koongareeska uu bixiyo. xagga Iiraan, war culus ayaa ka soo baxay goor dhaweyto. ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa farta ku fiiqay inay fuliyeen howlgal ballaaran oo gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday, waxaana lagu tiigsaday 8 saldhig militari oo Maraykanku uu ku leeyahay gobolka, iyagoo ku tilmaamay weeraradaasi jawaab go'aan leh oo laga bixiyey gardarro cusub oo Maraykanku uu ku qaaday dhulka Iiraan. bayaan uu soo saaray ciidamada Iiraan oo laga baahiyey telefishinka dowladda Iiraan ayaa waxaa lagu sheegay in ciidanka badda iyo ciidanka cirka ay si wada jir ah u fuliyeen howlgal intii u dhaxaysay 2 ilaa 3 habeenimo waqtiga maxalliga ah, iyagoo sheegay inay beegsadeen 8 saldhig militari oo muhiim ah oo Maraykanku uu leeyahay, waxaana ku jira saldhigga ciidamada cirka ee Ali al-Salim ee Kuwait ku yaal iyo xarunta ciidanka badda ee taliska shanaad ee Maraykanka ee dekedda Salmaan ee waddanka Bahrain. ciidamada Iiraan waxay kaloo sheegeen in howlgalka lagu isticmaalay gantaalo nooca balastiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. waxay sheegeen in xarumihii la beegsaday dukun daakun laga dhigay. sida bayaanka lagu sheegay, howlgalka ayaa daba socday weeraro sida bayaanka lagu yiri cadowga uu ku qaaday 5 fariisin oo xeebeed oo Iiraan ay leedahay saacada ka hor. bayaanka ayaa si kulul waxa loogu yiri cadowga gardarolaha ah oo dabeecadiisa lagu garto jabinta ballanqaadida iyo ku xadgudubka heshiisyada ayaa saacadii hore ee maanta wuxuu weeraray 5 fariisin oo xeebeed oo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ku yaal, isagoo marmarsiyo ka dhiganaya jawaab uu ka bixinayo tilaabada ciidamada badda ee Iiraan ay ku hor istaageen markab ku xadgudbay xeerarka marinka Hormuz. digniin ku saabsan fulinta marinka Hormuz, ciidamada Iiraan waxay sheegeen in isu socodka maraakiibta ee marinka Hormuz uu hoos yimaado mas'uuliyadda Iiraan, iyadoo la raacayo heshiiskii is-afagarad ee Pakistan ay dhexdhexaadisay ee dhawaan ay kala saxiixdeen Iiraan iyo Maraykanka. waxa intaasi ay ku dareen laga bilaabo hadda wixii ka dambeeya maraakiibta lagu helo inay ku xadgudbaan xeerarka waxaa loola dhaqmi doonaa si ka adag sidii hore. bayaanka ayaa sidoo kale waxa uu ka digay in gardarro kasta oo mustaqbalka oo ka dhan ah Iiraan oo sida la yiri cadowga uu sameeyo iyadoo aan loo eegin marmarsiyaha uu adeegsanayo, xitaa haddii sidii xalay iyo habeen hore oo kale uu beegsado bartilmaameedyo loo arko kuwa muhiimad yar leh, waxaa looga jawaabi doonaa jawaab burburin xambaarsan. ciidamada IRGC waxay sidoo kale sheegeen sida hadalka u yiraahdeen cadowgu waa inuu fahmaa in jabinta rasaas joojinta ay tahay jabinta qodobka koowaad ee heshiiska Islaamabad, taas oo keeni doonta in gebi ahaanba la hakiyo
dhammaanba habraacyada la xiriira heshiiskaas. tani waxay ka macno tahay Iiraan inay ka bixi karto heshiiska gebi ahaanba. war kale oo arrimahan la xiriira, dowladaha Bahrain iyo Kuwait ayaa xaqiijiyay in weeraro Iiraan ay ku soo qaaday dalalkooda, iyagoo si adag u cambaareeyay weeraradan oo ay ku sifeeyeen xadgudub gardarro xambaarsan. waxay sheegeen in ay soo rideen inta badan waa sida dalka loo dhigay diyaaradihii iyo gantaaladii loo adeegsaday weeraradaasi, isla markaasna khasaaruhu ku kooban yahay dhismayaal waxyeello kooban ay soo gaartay. laakiin goordhaweyto dowladda waddanka Bahrain, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, ayaa soo bandhigtay burburka goobaha qaarkood oo ay ku dhaceen gantaalada iyo diyaaradaha droniska, waxaana la sheegay in weli aysan jirin wax khasaaro nafeed ah oo ka dhashay weeraradaasi. wixii warah ee arrimahaasi ku soo kordha waynu arki doonaa, bal intayna ka bixin wararka aynu eegno haddii ay jiraan macluumaadyo iyo warar ku soo kordhay xaaladan intii aynu hawada ku jirnay. Kuwait ayaa hadda waxay sheegaysaa inay ka warheshay ugu yaraan 2 gantaal oo nooca balastiga ah oo saakay hiirtii waa beri lagu soo qaaday waddankooda. wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraanna waxay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi goordhaweyta oo ka degay magaalada Baghdad ee caasimadda waddanka Ciraaq, halkaasi oo wadahadallo uu kula leeyahay mas'uuliyiinta waddankaasi. dhammaan wararkan iyo wixii ku soo kordha waxaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla ilmo barnaamijka wararka maanta oo goordhow soo gali doona. inta ka horeysa, si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.